halkani waa mid ka mid ah meheradaha sida gaarka loogu iibiyo cunto dhaqameedka ay ku yaala magaalada Guday. Cunto dhaqameedka ay Soomaalidu sida gaarka u isticmaasho ayaa ah mid Alle subhanahu wa ta'ala inta badan ay ku manaystay caafimaad, waxayna cuntooyinkaasi dabiiciga ah ka mid ah soorta, haruurka ama cambuulada noocyadeeda kala duwan. haddaba Leonard Siyaad Maxamed oo ka mid ah ganacsatada yaryar ee magaalada Guday kana ganacsata cunto dhaqameedka ayaa waxay bilowday in cunto dhaqameedka ay karinayso ay u raadiso weel dhaqameedkii hore ee lagu cuni jiray si macaamiisha ku xidhan meherada ay ugu rido raashinka. weelashan oo sanadihii u dambeeyay si nidaam guurahayay ayaa hadda moodaa kuwo si horle loo isticmaalayo. xeedhada iyo faldhaanka, gaawaha caanaha lagu cabo iyo dhiisha caanaha waa agabka ay London macaamiisheeda ugu adeegayso. muddo xogow ah ka shaqeysta cambuulada, caanaha geela, wax walba oo dhaqan macsarta, malabka, wixii oo dhan dhamaan waan hayaa. wax walba oo dhaqan ahaa oo la isticmaali jiray. wallahi cid eega intii shaqeyso oo igu sii dharsamay anuu baa fikirkayga ka helay inaan iska shaqeysto. markii uu horeysay shaah baan ka bilaabay, shaah baan kali jiray. kadib haddana kolba waxun baan ku darayay, mar cambuulo ku daray, mar soor baan ku daray, mar eega malabka iyo macsarta iyo waxaas oo dhan baan ku daray. marka alxamdulillah waan ka faa'iido wax khasaaraha kala ma kulmin. wallahi markaan saa u fiiriyay waxaan sidoo kan wax ka fiican oo iyaga maanta faa'iido fiican laga heli karo tan baa jirto maasadi. saal ahaan dadkii wadartay oo rewiwans kan oo marka waxyaalaha dhaqanka waa loo wada baahan yahay. haday cambuulada tahay, haday soorta tahay, haday tahay digirti, haday macsarta tahay, haday malabka tahay, waxyaalahaas oo dhan waa loo baahan yahay. marka si la ilaalin maadaama baahida dadkii u badan tahay, wixii baahidiisu badan tahay in baana wax laga helaa. sida ma ana lafta igu dhalisay inaan ka shaqeysto oo ana wax ka hela dadkina uga faa'iideeyo bulshada. ma sha Allah iyadoo ma ku maareeyaa. marka xitaa shaqo kale xitaa in igu bedelay ma rabo. shaqadan weeyeen asalaante nin walba wax bartay in moogtahay in buu yaqaana. marka ani maadaama aan tan barto fahmay tan mooyeen iga shaqo kale ma ogani. bariga hore kale xitaa weelasha dhaqanka kubaana shubi jirin. caanaha kale waxaan ku shubi jiray galaaska iyo koobkii cad dhigtay lahaay cadda. eega wixii oo dhan waan ka tagnay. soortii iyo cambuuladii wixii oo dhan xeedhadii iyo fuldhaankii waa lagu ridayaa. caanihii waxaa lagu shubayaa dhiilasha yararka ah shiikayowga la dhihi jiray bariga hore. wax walba waxaan u bedelay dhaqanka. marka alxamdulillah inta dhaqanka u bedelay waliba aad baan u sii faa'iiday ma sha Allah. caanihii waxaan ku siinayaa dhiil cugan oo mar walba waan cugayaa. habeenkii waan cugayaa, aroortina waan cugayaa. labada gelin baa xilli walba ruux walba markuu ku cabo waan ka sii cugayaa. marka dhiilkaas oo cugan baan ku bedelay. cambuuladii oo kaleeto aan baaquliyadii ku ridi jirnay qalinka ahaa waan ka daynay. xeedhadii baan ku ridaynaa. qaadadii lagu cunay waan ka bedelay, fuldhaan baan u bedelay. marka wallahi ma sha Allah inta dhiilka xagga u bedelay waliba suuqayga waxaad moodaa inuu kor u kacayba. marka dhaqanka yaa laga tagay. dhanka kale qaar ka mid ah macaamiisha ku xidhan meherada Leonard Siyaad ayaa waxa ay sheegeen in cuntada lagu cuno weel dhaqameedkan iyo midka kale aysan isku udug iyo isku ortoona ay ahayn. labadu waa kurbada soo yaqaanaan laakiin waa dhil weyn. warma ku dumisay alaabtan waayadii hore ma taqaanaa miyiga yaa ugu dambeysay. marka meheradan baan ugu imid markaad waxaad xusuusanaysaa marka taqaanaa hidaha iyo dhaqankii iyo mataqaanaa asalkii wixii mataqaanaa qofku kusoo bilowday markuu arko farxad gooniya gelinaysaa. meheradana intaba wada keentay oo wixii oo dhan kulmisay. caanihii geela, mataqaanaa soorti, xeedhadii lagu cuni jiray iyo fadhaalkii, gaawihii wixii oo dhan baa hal meel wada jooga. weel noocan oo kale oo geed laga soo sameeyey, findhaalkii, xeedhadii, dhiilkii, magaraysaa agabka noocana ilaa 20 sano ka hor ayaa igu dambeysay miyiga. waliban magaalo anoo ku isticmaalana waa ikooba. waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye weelkan waxyaabo dheeri yaa lagu sameynhayaa oo waa la cugahayaa. cugaygaas waxa weeye wuxuu leeyahay sinjiid udgoon buu leeyahay. waxa weeye dhadhanka iyo urkana waa israacaan. waxyaabaha geedka laga cunahayo lagu isticmaalahayo kow suudhiisaa ku qancinaysa. waa suud udgoon oo waxa weeye magaraysaa loogu talagalay. hadduu wixii uu urkiisu kuu fiicnaadana dhadhankiisana waad garanaysaa asagana wuu fiican yahay.